account-kaaga marka uu qofku galo oo account-kiisa galo ama uu ka galo mobile-ka ama laptop ha noqoto website-ka waxa kuu soo baxaya e-shop, promotion, my office, product, news iyo support, gallery iyo about essence meel ku kala qoran tahay. Marka horta hadday xagga dalabka ay noqoto ama wixii aad raadinaysay ama code-kaad ku raadinaysaa oo badanka cadarada code-ka ku qoray way fududahay. So hadda kale hadaad doonayso angel oo kale W115 hadaad tiraahdo oo search-kii ku dhufato cadarkii wax kasta uu cadarkii angel laga sameeyey ama ayaa la socda cadarkii body balm ama body lotionkii iyo shower gelkiisii. Marka cadaradu way iska fudud yihiin oo qofku halka intuu numberka geliyo ayuu search-ka taabanayaa oo uu ku baarayaa. Laakiin haddii aad doonayso haddii aad wixii code-kiisa aad garanaysana halkaas aad gelin kartaa oo sawirka aan code-ka soo raaciyey. Haddii kale waxaad tegaysaa e-shop ama category kolba kii aad arkayso ayaad tegaysaa. Haddii ay waxaa laga yaabaa sometimes markaan mobile ka galo inay category ay ku qoran tahay. e-shop markaad tagto waxaad arkaysaa wixii oo dhan. Waa kan e-shopka markaad tagto listka kuu soo baxaya ama category haddaad tagto oo hadda laptopka category kuma tusayso laakiin hadday category ay ku tusayso waxaad kuu soo baxaya wixii oo dhan. Marka waa kan for women haddaad taabato waa cadaradii dumarka oo dhan ayaa kuu soo baxaya. For men haddaad taabato cadaradii ragga oo dhan. Monolorin waxa weeyaan kiniinkan weeyaan cajalad gooni aan ka sameeyey faa'iidadiisa iyo wuxuu tarayo. Marka insha Allah faa'iidooyinkooda ma gudagelayna caawa laakiin waxa weeyaan halkaad ka heli lahaydeen ama account-kiina dhexgalka inaad dhexgalka aad barataan sida account-kiina uga adeegan lahaydeen. Kanna waa four element baa la yidhaahdaa waa cadar kale oo isaguna cadarada ay kaga daydeen Hermes baa la yidhaahdaa shirkadda ay maaragtay isku urta yihiin. Haddaad hoos u socoto waxa weeyaan must have edition oo ah makeup-koodii cusbaa saad u aragtaanba beauty packan shalay bay ayay ku soo dareen beauty packan shalay bay ku soo dareen marka okay marka beauty packan shalay bay ku soo dareen oo kuwii shalay cusbaa weeyaan show programkii ay dhigeen ay ku xayeysiinayeen cadaradii baa ku jira must have edition cadarka sample-kiisii baa ku jira hadduu qofku u baahdo cadarkan intaana dalban sample-kiisa ayaad dalban kartaa. Waxa kale ku jira makeup-kii oo dhan ayaa ku jira saad u aragtaanba makeup-yadii oo dhan. Marka kolley wada gudageli maayo laakiin halkaas ay ku qoran tahay must have edition ay ku qoran tahay in hadda tegey. Must have edition waa face wixii wejiga la marinayay wixii indhaha la marinayay wixii afka ama dibnaha la marinayay nail varnish-ka cidiyaha accessory-gii ama sida makeup bags oo kale ayaa kugu qoran. Halkan waxa weeyaan niche oo isaguna waa cadarkooda aad u udgoon waa cadarka shirkaddu iibisa cadarada ugu qaalisan weeyaan. Marka isagana waa kaas halka aad ka helaysaa waa niche. Cajaladda waxaan rabaa inaan soo gaabiyo si qofku hadhow tolo markuu u daawanayo oo uu rabo inuu meelihii wax laga eegayo inuu ka arko ee ugu fududaato. Marka haddii ay dheeraato qofku maaragtay waqtigiibaa ku badanaya. Marka niche waxaad ka helaysaa wixii cadaradaasad ka helaysaa udgoon. Home clean haddaad tagto wixii nadaafadda oo dhan weeyaan nadaafadda ku saabsanaa haddaad home clean-kii aad tagto. Aloe vera waa wax kastoo dacar laga sameeyey. Aloe veradu wax kastoo dacar laga sameeyey waxa ku jirta Colgate lagu cadeynayo laba nooc ah waxa ku jira maxaa la yiraahdaa after shaving-kii foamka ama saabuntii lagu xiiranayay waxa ku jira dacartii tii la cabayay kiniinadeedii shaamboogii conditioner-kii marka wax kasta oo dacar ka samaysan ayaa aloe verada hoos imanaya. Marka haddaad ogtahay wixii lagu soo dhigay ama meesha wax yaalay inuu yahay wixii dacarta ahaa inuu yahay in aad tagto weeyaan marka aad dhanka aloe verada tagto dhanka aloe verada ka eegto. Marka aloe veradina wata colostrum waxa weeyaan creamkan anigu badanka aan xayeysiiyo
kiniinadan colostrumka inaga xalaal nooma aha taas waa aan u soo xayeysin ama aan u soo dhigin laakiin intan kaloo dhan waa tan colostrum shower gelkii dadka badanka xasaasiyadda qaba ama aksimada qabo kale soo weydiiya ama caruurtooda u raba bahalkan oo yogurtka lagu sameeyo insha Allah waan idin soo bandhigi doonaa haddii la haydhaa colostrum creamkii oo noocyo badan kala ah nourishing creamkii oo body creamkii caadiga ah oo qof weyn iyo qof yarba isticmaali karo marka kan colostrum creamka anti aging buu leeyahay isagoo cadar le buu leeyahay oo maaragtay perfume le ayaa ku jira waa kan perfume baaba ku qoran baka cadar kale marka haddii anti aging una ku qornayna waxa weeyaan dadka aan u baahnayn wax gabooshaa ka ilaaliya dhalinyaradoo kale gabdhaha yaryaroo kale laakiin still qofkii wejigu kale kalar yahay ama maaragtay wejigu caruurteenoo kale marmar waxa kasoo baxa wax cadcadoo vitamin deficiency oo kale ku dhaca haddii wadan cadceeda la geeyo way ka bacdaa marka isagoo kale ilmahaasoo kale anti aging ma qaadaysid waxaad u qaadaysaa ka normalka ah baad u qaadaysaa anti aging ka lahayn maxaa la dhahdaa serumkii kuwan oo dhan waxaan ku wada sharaxay sida loo marsanayo iyo waxay tarayaan waxaan ku sharaxay cajalada aan marsanayo soo bandhigay marka kii aan anti aging ka lahayn waa kan anti aging kuma qorna creamka marka colostrumka waa kaas wax kasta oo iyo lipstick sida fastinta oo kale afka la marsanayo haddii afka ku jajabay ama ku daldalaacay marka isaga waxa weeyaan wax kasta oo colostrum ay ku qoran tahay ayaa hoos imanaya colostrumka colostrum taasaa ka horeysa markastaba iyagana colostrum waxa ku xiga kaniinkan CBD-ga isagana insha Allah waan soo sharixi doonaa imikun buu nagu cusub yuhuna soo gaadhay marka productii cusubna kalena way soo wadaan marka mar baan insha Allah isku soo wada dari doonaa iyagana waxtarkooda iyo waxay tarayaan kaniinkan waxa weeyaan cannabis baa ku jirta cannabiska dhakhtarku dadku wuxuu ugu qoraa dadka chronic painka ama leh ama xanuunada aan qofkii laga daweyn karayn leh ama caruurta autistica ah ayay badanku dhakhtaradu u qoraan ama dadka terabiga u sameeya marka shirkaddu isagoo kaniin ah bay soo saareen so insha Allah mar baan faa'iideysa si fiican insha Allah uga soo hadli doona haddii la haydhaa kulle weekendka dambe slow living waxa weeyaan saliidihii weeyaan essential oilka ahaa weeyaan iyaguna haddaad xagga slow livingka aad tagto waa tan slow living ay ku qoran tahay qofku markasta waxa wanaagsan isagu ha galo haddii aabad maaragtay kolba mid iskaga dhufato waad arkaysaaba waayo sawirkii baa kugu soo baxaya nutrisense waxa weeyaan cabitaanka lift up iyo chill out iyo collagentii baa laga helayaa isagana oo ku intaasaa ku hoos taala kii bisha la cabayay kii wiiga la cabayay lactoferrin waxa weeyaan kiniinkii kale isaguna lactoferinka ahaayee lafa xanuunka iyo jir xanuunka iyo dhiig la'aanta loogu talagalay iyo runtii waxyaabo badan buu dawo u yahay waa kan lactoferrin tanna waxa weeyaan ointment ama dawo yaro dhiiqa ah weeyaan oo dadka finanku ku madoobaadeen oo kale I think maantana sawiraan soo dhigay ayay anfacaysaa u fiican tahay marka ida sida cream oo kale meel kasta lama marin laakiin meelaha qofka finanku kaga madoobaadeen ayuu marinayaa kadib colostrumka caadigaa buu normal u marsanayaa marka iyadoo finankaas madoobaadeen bay ka kaxaynaysaa laakiin kalarkaaga ma bedelayso ka kalarkaaga bedelaya yani qofka clean ka dhigaya naturalkiisii ku celinaya waxa weeyaan colostrumka weeyaan qofka kalarkaagii dabiiciga ahaa buu ku celinaya kalarku qofku kalacaanku noqonayo different colorska ayuu ka caawinaya home pharmacy waxa ku jira dawooyinkii oo dhan baa ku jira haddayna home pharmacy-ga tagno hadday noqoto kii dietka madax xanuunka kii wareegga dhiigga caawinayay vitamin C oo iyaguna home pharmacy-ga hoos imanayaan home perfume waxa weeyaan cadaradii guryaha insha Allah iyaguna cadaradii guryaha hoos imanaya creamka eczemada hand and foot care-ka ayuu hoos imanaya isaguna hand and foot care oo taalaa ku qoran waxa weeyaan kii gacmaha kanoo kale aniga waan isticmaalaa hadda shaqadaan dhigtaa iyo kan oo lagu talagalay meel kasta oo qofka adkaatay ama safan hadduu yeesho ama lugaha ay daldalaacaan ama maxaa la dhahdaa eczemada ayaa isagana lagu talagalay inuu qofka ka caawiyo tana waa sun care waxa ay weydiinayna hablo markaa catalog haddaad doonaysa inaad iibsato halkee baad ka helaysaa
ama haddaad rabto inaad soo download garaysato marka printed material baa tegaysaa printed material markaad tagto katalogyada waa kuwan waad ku ridanaysaa kii aad doonaysa marka katalogyada waa kuwan katalogyada marka way kala duwan yihiin kan labadan cad waa price listkii weeyaan marka af ingiriisi inuu ku qoran yihiin iska hubso kaa doonaysa hadda kanoo kale Lithuanian buu ku qoran yahay English baxlaa ku qoran qofkii doonaya markastaba iska hubsanaad mid af kala hadalbanin so waa kan kataloga kanna waa price listka adiga ku gaar ah marka dadka yacni dad customer leedahay customerkaaga ma siinaysid aday gaar kugu tahay price listka wax kastoo shirkadu hayso wixii ay ku iibinaysay iyo wixii adigu aad ku sii iibin lahayd baa ku qoran laakiin kuwan kataloga caadiga waxa ku qoran shay kastaba sawirkiisii iyo wixii aad ku iibinaysay kana waa business presentation kii haddii yacni qof professional kaasoo dalbado ku iraa muxuu yahay businesskaagan waxaan ii sharax buuggaa yar baad iibsan kartaa aad qofkii siin kartaa isagaa soo akhrisanaya daawanaya kan kalena waa marketingka haddaad marketing planka doonaysa commissionka iyo marketing planka se u shaqeeyaan isagana waad ku ridan kartaa waa kan waxa kale oo ku jira SNS Travel oo travel agency baan nahay halka ugu sarreysaba weeyaan isagoo SNS Travel kaa weeyaan markaad tagto waa flight iyo hoteelo flightka iyo hoteelada markaad flightka tegayso aad taabato page kale ayuu ku geynayaa page kale ayuu kuu soo saarayaa pageka markuu kuu soo saaro waxaad gelinaysaa ID-gaagiba haddana dib u gelinaysaa ID-gaaga markaad dib u geliso marka waxaad dooranaysaa luuqadaad dooranaysaa hadda wuxuu taagan yahay check waxaan ka dhigayaa English markaan ka dhigo isbedelo waxaad geysanaysaa marka sidii tigirka caadiga website-ka uga goosanaysa waad u isticmaalaysaa waxaad gelinaysaa halkaad tegayso from meeshaad tegaysaa Manchester oo kale haddaan ku qoro taamadooni Manchester kaba soo qaad dad Hargeysa oo kale ku qoro waqtigaad tegayso kaba dhigba 12 ilaa 30 April okay search taabo sidii caadiga ahaa agency caadi unbaad tahay wuxuu ku soo saaraya diyaaradihii markaad dawaatan aniga ii soo baxday 703 Ethiopian Airline-ka 703 haddana Ethiopian Airline-ka 700 Ethiopian Airline Turkish Airline iyo Ethiopian Airline-ka 700 marka sidii website-ka caadiga ah weeyaan marka tigirka aad goosateed aad doonayso kii kuugu jaban book unbaad taabanaysaa book markaad taabato wuxuu ku siinayaa bookingkaagii detailkaagii waxaagii baasaboorka qofka ugu qornaa baad gelinaysaa qof kalena waad u booking garayn kartaa sidii travel agency caadi ah weeyaan emailku tigirku kugu soo dhacayaa kadib markaa qofkii markaasaa tigirkiisa u diraysaa haddii aad rabto inaad flight detailka aragto inta saacadoo transit tahay ama detailka informationka flightka dad rabto wataa hadda imika kayga kale waxa ku qoran Manchester buu ka baxayaa 1 hour 5 minute London buu tegayaa London bay ka baxaysaa London xilligay ka baxaysay Addis Ababa xilligay ka baxaysay Hargeysa marka flight detailka dad doonaysana halkaas ayaa taabanaysaa marka kaasi waxa weeyaan flightkii weeyaan haddaan dib u noqono hoteeladana waan jirnaa so anywhere haddaad flightkaaga haysato for example Denmark aad rabto inaad tagto ama Norway aad rabto inaad tagto waxaad ama Norway aad rabto inaad tagto waxaad goosanaysaa hoteeladii baad ka dhiganaysaa kani waa flight kana waa hotel marka hotel baad ka dhiganaysaa flight iyo hotel haddaad rabtona ta saddexaad baad taabanaysaa marka hotelka sidii imika meel alle meesha joogto imika weer London oo kale haddaad rabto ama Oslo haddaad rabo hoteeladii buu ku siinayaa markaa meeshaad doonaysid marka waa iska straight forward haddii marka aad isleedahay luuqadda ama ku yara dhibaysa dad qof garanaya aad kula sameeyo
tigerka markaad jaranayso especially dad qofka tigerka jaran inuu fiican detailkiisa saxdaa geliyo oo maxaan idhahdaa ka yara fiirsado marka taasi waa taas e-shopkii wakaa halkaasoo dhan markastana waan ku idhaa hablaha last minute-ka ha sugina marka wax laydin soo weydiiya ha sugina adigoo shirkaddii ku jirta qof kale ku tiraa ma aqaana way ma fiicna marka adigu inaad account-kaaga habeenkaad wax ka dalbanayso un ha gelin adigu iska gal eeg saad maxaa la marka dambe waad baranaysaa e-shopka iska tag my office tag wixii marka waad la qabsanaysaa marka dambe waad baranaysaa my office haddaad tagto waxyaabaha ugu muhiimsan baa badanka laga arkaa haddaad my tree aad tagto waxaad arkaysaa dadkii ku hoos yimaado oo dhan dadka adiga ku hoos yimaado oo dhan ayaad arkaysaa commission haddaad tagto commissionka weliba dadka marka commissionka inay sii dalbadaan weeyaan oo request for commission inaad commissionkii dalbato cajirad kalaan ka sameeyey qofkii u baahan waa loo soo forward gareyn doonaa raba inuu commissionkiisa bishii hore lasoo baxo waxaad kale muhiim ah my order dadka badanka markay orderka ay tagto meel ay ka arkaan ma garanayaan ama inay jirto ma oga marka my order haddaad tagto waxaad arkaysaa orderadaadii oo dhan eed dalbatay baad arkaysaa invoice-kaagaad la soo bixi kartaa kaarkaas hadduu kaa cas yahay lacagtaadi may bixin hadduu green ku yahay lacagtaadi way baxday marka especially habeenkii marka bishu isbedelaysa ugu dambayso always lacagtii haddaad ay baxday ha aaminin laakiin my office tag orderkaaga tag kaarkan eeg inuu kaa cas yahay inuu green ku yahay lacagtii ay baxday waayo marka jaanis haysato waqti baad haysataa laakiin haddii waqtigu kaa dhacayo too late weeyaan habeenkiina uu isbedelay discount-kaagina waad waayeysaa marka always ila halkaa ku soo hubso ama dhibcaha dad dhibcihii markiiba dhibcihii aad heshana orderkaaga way baxday laakiin halkaasuu qofku ka eegi karayaa aad tiimkaagana ka caawin kartaa kaarkaa ha eegaan qofka orderkiisa ka shakiya insha allah marka my office na isagana profilekaagii baa ku jira maxaa la idhahdaayo ood samayn kartaa marka insha allah tan intaasaan ku joojinayaa inaad qofku uu barto dhexgalka accountkiisa iyo travel agency ahaan tigerka soo looga jarto ama hoteelada soo looga booking garaysto uu sameeyo habeen kastana marka ay 12-ka Europe 12-ka UK ay gaadho wuxuu uu qofku newska haddaad eegto waxaad arkaysaa wax kastoo markaa cusub sida haddii xaraash uu jiro oo kale adigoo qofba la sugin wixii wuxuu kuu soo dhigayaa cusbaaya shirkadoo ka dhan wixii akhbaaruu kuu soo dhigayaa haddii uu discount jirin halkaasaad ka arkaysaa haddii event ay jirto oo program uu jiro halkaasaad ka arkaysaa hadday wax cusub soo saareen halkaasaad ka arkaysaa everything halkaasaad ka arkaysaa insha allah qof kastaba waqti account-kaaga sii mar haddee meeshii ay dukaankaagii online ay tahay inaad adigu barato wax ka fiican ma jiro oo maaragtay aad wax badan aad waqti aad siiso ood eegto category kastaba maxaa hoos imaada si hadhow kugu fududaato